ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 3ኛ ዓመት ሲጨርሱ 4ኛ ዓመት ከመግባታቸው በፊት ለአንድ ዓመት ይሄ በነፃ ያስተማራቸውን ማህበረሰብ ለማገልገል ራሳቸውም ተግባራዊ ትምህርት እንዲያገኙ በየክልሉ ሄደው በየሙያቸው ይሰሩ ነበር ለአንድ ዓመት። bismillahir rahmanir rahim matahay waalid ay caruurtiisu dhigtaan ama ay ku nool yihiinba dalka Itoobiya sidoo kalena ay wax ka bartaan dalkaasi sidoo kale matahay ardayda wax ka barata dalka Itoobiya ama ku jirta fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare ee 12aad ama jaamacadda hadda bilow ah ama inay qalin jabiyaan markaas diyaar u ah warbixintan idinka ay idinku socotaa gudaha dalka Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay waxa ka socda mudaharaadyo waaweyn oo ay dhigayaan ardayda wax ka barata jaamacadaha kala gedsan ee dalka Itoobiya kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkaasi ninka lagu magacaabo Birhanu Naga uu si cad baarlamaanka hortiisa uga sheegay inay doonayaan inay ardayda jaamacadaha ku jirta ay ku shaqeystaan si bilaasha adoogow waa si bilaasha muddaduna ma yara hal sano ayaa dawladda si bilaasha ugu shaqeyn doontaa haddii aad jaamacadaha kala gedsan ee dalka Itoobiya wax ka dhigato ama aad doonayso inaad hadda gasho dalka Itoobiya waxa la sheegay inay macallimiin yaraan baahsan ay gudaha dalkaasi ka jirto iskuuladiina macallimiin wax dhigta la laayahay laba sababood awgood waxa lagu sheegay midda koobaad lacagta mushaharka ay macallimiinta wax ka dhiga dalka Itoobiya qaataan oo aad u yar iyo sidoo kale ardadii baran jirtay maadooyinka macallinimo ama ku takhasusi jirtay inay macallin noqdaan oo iyaguna sanadihii u dambeeyay gabaabsi noqonaya dalka Itoobiya waxbarashadiisa qalalaase culus ayaa ka taagan wasiirka waxbarashada eedo culus ayaa loo jeedinayaa iyagoo mudaharaadyo waaweyn ay ka dhacayaan inta aan Soomaalida ahayn marka aan saas ku leeyahay deegaanka Soomaalida oo caasimadu tahay Jigjiga ayaan ilaa hadda laga soo sheegin wax mudaharaadyo ah oo ardaydu ay dhigayaan taasoo u muuqata Soomaalidu inaysan ahayn dadka go'aanka iyagu sameeya ee ay yihiin oo kaliya hay'an raac ama cid ka horeysa markaasi waxa ay la timaado oo aqbala waa maxay dhibaatada cusub ee dalka Itoobiya dhinaca waxbarashada oo hadda ka jiro si aad la wada socoteenba muddooyinkii ugu dambeysay ama sanadihii ugu dambeysay ardada fasalka 12aad ka gudbaysa ee doonaysa inay jaamacadaha dalkaasi gasho aad ayay u daadanayeen ama dhacayeen sanadkii ugu dambeeyay ee inta hadda la xusuusto in ka badan 550,000 oo arday ayaa imtixaanada dugsiga sare Itoobiya oo dhan u fadhiisatay wax ka yar 50,000 oo wiil ama 50,000 oo arday isugu jirta gabdho iyo wiilal ayaan imtixaankaasi baastay Birhanu Naga ma bixi doona Abiy Ahmed aritan cusub ma waxbuu ka og yahay ardayduse ma guuleysan doonaan oo mudaharaadyada ay wadaan ma ku guuleysan doonaan warbixinadii ugu dambeeyay ee arrimahan laga qoray ayaan warbixinteenan saaxiibayaal idin kula wadaagi doonaaye nala sii joog haddii aad arday tahay sidoo kalena u sii sheer gare waalidiinta ay ciyaalkooda ama ubadkoodu dalka Itoobiya wax ka bartaan si muuqaalkani meel leer u gaaro warbixinadii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha wasaaradda waxbarashada dalka Itoobiya ay dalkaas ku soo kordhisay ayaan muuqeen idin kula wadaagi doonaa waxaan ahay Cabdulqaadir Maxamed Magan Media ayaa iga daawanaysaan nagu soo biiro barteena Magan Media subscribe ku samee muuqaalkan la garay sidoo kalena saaxiibada la sii wadaag taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 19 bisha November sanada 2025 aynu ku bilownaa dhawaanba qalalaasooyin kala duwan ayaa gudaha dalka Itoobiya ka taagan iyadoo ay ugu waaweynayeen horay dagaalada gudaha iyo siyaasadda kacsan ee dalka Itoobiya ka taagan jabhado ka soo horjeeda xukuumadda Abiy Ahmed ayaa dalkaasi waxay faraq kulul ku hayaan ciidamada militariga tii ay taagan tahay TPLF iyo sidoo kale Abiy Ahmed dawladdiisa ayaa haddana mar kale waxay u muuqdaan inay isku dhici doonaan oo uu dagaal ku dhex mari doono waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega
iyadoo taasina ay jirto Eritrea iyo dowladda Ethiopia waa isu farabaxsanayaan iyadoo dowladda Abiy Ahmed ay si adag u raadinayso inay hesho mid kamid ah dekedaha ku yaala dalka Eritrea taasoo lagu magacaabo dekeda Casab oo dhinaca Ethiopia markaasi soo xigta lana sheegay in wax ka yar 70 kilomitir ay xadka Ethiopia ay dekedaasi u jirto Ethiopiaanku xaaladahaas oo dhan oo taagan waxa sidoo kale jira in dalka ay ka taagan yihiin gaajo macaluul iyo sidoo kale sicir barar aad u ballaaran waxaana la leeyahay $100 lacagta Ethiopiaanka in ka badan 18,000 ama ku dhawaad 18,000 ayuu markaasi ka maraya gudaha dalka Ethiopia waana arin aan horay dalkaasi looga baran xiisadahaas oo dhan oo dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay wajahayso haddana waxa muuqata in markan dhalinyarada iyo sidoo kale jiilka cusub ee mustaqbalka u noqonaya Ethiopia markaasi iyaguna ay mugdi iyo hubanti la'aan u galay mustaqbalkooda wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Professor Birhanu Naga oo isagu ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada ayaa muddooyinkii u dambeysay waxa uu ka shaqeynayay sidoo waxbarashada Ethiopia guud ahaanteedaba markaasi wax uga bedeli lahaa ninkan waa inta la og yahay wasiirada ka tirsan xukuumadda Abiy Ahmed ee aan ka mid ka ahayn xisbiga barwaaqo ama BP ee markaasi dowladda Ethiopia gacanta ku haya waxa uu ka mid yahay xisbiyada mucaaradka ah ee dalka Ethiopia ka jira ee Abiy Ahmed kula heshiiyay inay dalka doorasho iyo sidoo kale maamul ay ka wada sinaadaan laga shaqaysiyo ama laga dhiso Birhanu Naga waxa uu inta badan aad u dhaleelaa systemka waxbarasho ee dalka Ethiopia muddadii uu joogay waxa lagu xusuustaa in waxyaabo badan oo markaasi waxbarashada Ethiopia uu wax ka bedelay waxa uu ninkaani soo kordhiyay in gabi ahaanba meesha laga saaro shahaadada dugsiga sare gaar ahaan midda fasalka 10aad ama form 2ga Ethiopia lagu qaadan jiray awal hore systemka ama nidaamka waxbarashada dalka Ethiopia dugsiga sare ee galaaska 1aad ilaa galaaska 4aad waxa awal hore dhaqan u ahayd in laba imtixaan oo shahaadi ah oo qaranku ay leeyihiin markaasi laga sameeyo mid waxa lagu gali jiray sida dadka qaarkood ay yaqaanaan form 2ga ama fasalka 10aad ee dugsiga sare kaas ardayda ka baxda oo dhibcaha markaasi loogu talagalay keenta inay fasalka 11aad u gudbaan ayaa aadi jiray markaasi 11aad ama form 3 iyo form 4 markaa aadi jiray inta aan dhibcahaas loogu talagalay in fasalka 11aad ama form 3ga la yiraahdo loogu gudba aan keenina waxa fursad loo siin jiray inay kolleejyada kala gadsan ee dalka Ethiopia markaas ka jira ay wax ka bartaan waxay aadi jireen neersiyada kala gadsan oo caafimaadka waxay baran jireen kolleejyada macallimiinta lagu tababaro waxay sidoo kale baran jireen kuliyadda technicalka ama farsamada gacanta wuxuu qofkaas sidoo kale aadi karay kuliyadda beeraha oo markaas iyadana muddo 3 sano ah ay dadku wax ka baran jireen ama ardaydaas wax ka baran jireen taas gabi ahaan baninkaani meesha waa uu ka saaray oo waxa uu yiri dugsiga sare sida caadiga ah ee caalamku waa uu ku dhaqmo hal shahaado qaran ayuu yeelanayaa waana midda ugu dambaysa oo fasalka 12aadka ama form 4ka loo yaqaano markaasi ay ardaydu ku galayaan intaas markii uu soo gudbiyay haddana systemka waxbarasho ama nidaamka waxbarasho ee dalka Ethiopia si gaar ah imtixaamada waxa lagu eedeeyaa in musuq badan uu ka jiro deegaanada kala gedsan ee dalkaas Ethiopia waxa uu na sameeyay in imtixaanka la mideeyo oo markaasi hal meel oo dawladdu ay ogtahay lana ilaalin karo markaas lagu qabto si qashka iyo in ardada markaas loo fududeeyo in imtixaanka si aan waafaqsanayn shuruucda dalka ay markaas u galaan waxa uu keenay in jaamacadaha kala gedsan ee dalka Ethiopia ee markaas lagu galo imtixaanka dawladda macallimiinta iyo sidoo kale dadka professorada ah ee kormeerayaasha ka ah ee imtixaankaas qaadayana ay ka yimaadaan dugsiyada Ethiopia oo dhan si gaarana markaasi macallimiinta tusaale ahaan dawladyahanka Soomaalida wax ka dhigta in la geeyo gobolada ama Axmaarada la geeyo ama Tigrayga la geeyo Oromada la geeyo adu deegaanada dalka Ethiopia loo qaybiyo kuwa fasalada ka dhiga ama waxbarashada ka dhiga deegaanada kale sida Oromada iyo Tigrayga iyo Sidaamada iyo dadkan kalena Soomaalida loo keeno oo la isdaba mariyo si aysan dadkan u noqonin dad isfahansan deegaanka Soomaalida oo kale magaalada Jigjiga jaamacadda ku taala Jigjiga University la yiraahdo ee jaamacadda Qabri Dahar
oo labada jaamacadood deegaanka Soomaalida ku yaala ayaa imtixaanka fasalka 12aadka lagu galaa ardada deegaanka Soomaalida tiro kasto ay yihiin labadaas jaamacadood baa loo qaybiyaa jaamacadahaas iyo sidoo kale gobolada kale u dhow oo markaas lagu soo dari karo intaas marka sida systemkaas buu keenay oo qashki markaas lagu la dagaalamayo inta wixii ka dambeeyay imtixaanka shahaadiga ee dalka Ethiopia waxa uu noqday mid ka adag sidoo kale dhagaxa ardada baasta ama imtixaankaas ku guuleysatana ay aad u tirariyihiin dhowrkii sano ee ugu dambeeyay in ka badan 600 ba sanadkiiba gashay imtixaanka waxaan gaaraynin 30 ama 40 kun ayaa ka baasta waa waxyaabaha uu soo kordhiyay iyadoo taas ay la yaaban yihiin ardayda iyo sidoo kale dadka qaarkoodna ay ku taageersan yihiin oo leeyihiin arintan marka waxbay ka bedeli doontaa nidaamka waxbarasho ee dalka Ethiopia oo aad loo dhaliilo inuu markaasi meeshii la rabay dawladdaasi aysan gaarsiinin ayaa haddana waxa uu keenay in ardayda fasal jaamacadaha galaysa sanadkooda ugu horeeya maadooyin la yiraahdo common ay markaasi qaataan waa qof kasta haddaad adu macallinimo baranaysay haddaad engineer tahay haddaad doctor tahay haddaad nurse tahay adu faculty kasta ama nooc kasta oo waxbarasho oo jaamacadaha ka jira inta aadan galaaskaaga si toos u gelin waxa jira sanadka koobaad ee fresh ka tahay ama jaamacadda ku cusub tahay waxaad qaadanaysaa buu yiri maadooyin common oo ardada dhan ay wada dhiganayaan sanadkaas wixii ka dambeeya ayaad waxa toos u aadaysaa wixii aad jaamacadda u timid inaad barato marka taas waxay ka dhigtay dadkii 3 sano wax baran jiray marka 3 sano ku qalin jabin jiray inay 4 sano jaamacadda ay ku xareysnaadaan kii 5 sano ama 4 sano markaas wax baran jirayna 5 sano ay u noqoto kii 5 sano 6 sano kii 7 sano 8 sano sanad dheeriya markaas loogu daray arintaas dadka wax barta iyo ardayda kala gedsan jaamacadaha ku xaroonaysaa aad ay uga soo horjeesteen balse dawladdu waa ay dhaqan gelisay waana lagu shaqeeyaa hadda waxa timid haddana arin saddexaad oo ardayda dalka Ethiopia waalidiinta iyo sidoo kale dadka dawladda Abiy Ahmed dhaliilaba ay aad uga soo horjeesteen taas oo ku timid kadib markii macallimiintii Ethiopia wax ka dhigaysa jaamacadaha iyo iskuulada gabi ahaantiiba ay joojiyeen ama shaqo joojin ay sameeyeen sidoo kalena ay shaqadiiba iska daayeen qaarkood sabab la xiriira inaysan helin xuquuqaadkooda rasmiga mushaharka ay qaataan uu aad u yar yahay labadii sano ugu dambeysay waxa la sheegay in ka badan 100,000 oo macallimiin oo guud ahaan dalka Ethiopia markaas ay shaqada ka tageen taas oo keentay in iskuulo badan oo dalkaas ku yaala ay macallimiin la'aan isu xireen wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Professor Birhanu Naga waxa uu haddana keenay qorshe cusub baarlamaanka dalka Ethiopia oo arrimaha waxbarashada wax ka weydiinaya ayuuna hortagay waxa uu kaga dhawaaqay qorshe cusub oo Ethiopia lagu badbaadinayo ubadkoodana wax lagu barayo waxa uu yiri waana meesha hadda ay sartu ka qurunsan tahay ayna u muuqato in ama isagu uu ku bixi doono ama ardadu ay guuleysan doonaan ama iyaga laga guuleysan doona ardada oo jaamacadda ee wasaaradda waxbarashada waxa ay soo gudbisay ay dawladdu ay la ogoshahay inuu dhaqan galo waxa uu yiri sanadka qalin jabinta ardayga 3 sano marka uu dhigto oo uu jaamacadda isu diyaarinayo inuu qalin jabiyo sanad intuusan qalin jabinin waxa la wada aadayaa in 1 sano oo si bilaasha iskuulada dalka oo dhan ardadaas qalin jabinaysa ay uga soo shaqeynayaan hadda ogow 3 sano ayaad jaamacadda ku xareysneed tusaale ahaan inaad qalin jabiso ayaa kaliya ku dhiman inta aadan qalin jabin dawladdu waxay ku leedahay sanad 10 bilood banaanka aad waxa lagu qorayaa iskuulada waxbarashada ee dalka Ethiopia midkii la doono dawladdu doontay ku qoraysaa intaas aad shaqeynayso 10 bilood ama halkaasna aad shaqada ku jirto wax lacagna ma qaadanaysid wax xuquuqna ma lahaanaysid waa nidaam tababar buu yiri ninkan waxa uu doonayaa in macallimiin cusub marka in ka badan waxa la tilmaamaa 36 ilaa 40 jaamacadood in dalka Ethiopia ay ku yaalaan jaamacadda ugu yar sanadkii waxa ka qalin jabisa tiro dad oo la tilmaamay inay gaarayaan ama arday gaaraysa 2,000 ilaa 3,000 marka bal isku xisaabi haddii jaamacaddan tusaale ahaan 2,000 ay ka qalin jabisay celcelis marka la isu daro kuway ka badnaan karaan oo 40 jaamacadood ay yihiin 2,000 oo arday lagu dhuftay mise macallin buu helayaa markaasi wasaaradda waxbarashada oo 1 sano aan dawladda lacag wax ka ribin oo si fiican ugu shaqeynaysa arintaas ayaa hadda wasaaradda waxbarashada ee dalka Ethiopia ay soo kordhisay waxa la yiri 3 sano markaad jaamacadda dhigato oo aad qalin jabin sanadkii commonka ahaan uu ku dheer yahay 4 sano markaad dhigato haddana waxaad si aadi doontaa
markaas inaad qaadato hal sano oo macalinimo ah oo aad ardada Itoobiya wax bari doonto oo aadan wax mushaar iyo wax xuquuq lahaan doonin sidaas darteed qofkii 3 sano jaamacadda ku dhameyn lahaa 5 sano ayuu jaamacadda ku dhameynaya kii 4 sano ku dhameyn lahaana ugu dar markaas 2 sano wuxuu ku dhameyn doonaa isagana wax ka badan ki waligaaba si wad adiga maadooyinkii ama faculty-gii aad ku baran lahayd inaad 4 sano gudood ku gabagabayso jaamacadda 2 sano oo midna common yahay midna aad macallin noqonayso ayaa ku dheer arintaas marka Itoobiya guud ahaanteedaba buuq ballaaran ayay markaas ka furtay waxaana muuqata in ardada dalka Itoobiya gaar ahaan inta aan Soomaalida ahayn markaan ku leeyahay wali deegaanka Soomaalida jaamacadaha Qabridaar iyo Jigjiga laguma hayo mudaharaadyo ay markaas sameynayaan oo ay arintan uga cabanayaan balse deegaanka Oromada kan Axmaarada kan Tigrayga kan waxaan ku raahdaa Heririda sidoo kale Sidaamada Binshaangul Gumuska waligaaba waxa ka jira mudaharaado waaweyn macallimiinta shaqo joojinayay sameeyeen ardaydiina waxay leeyihiin waxba ma baranayno jaamacadahan iskaga tageena waa ayna diidan yihiin albaabada jaamacadaha Itoobiya dawladeedu waxay dhoobtay oo ay geysay jaamacad kasta oo dalka Itoobiya ku yaala ciidamo tiro badan oo markaas kuwa loo yaqaan police federaalka ayaa jaamacadaha la geeyay si ay u ilaaliyaan inaysan ardaydu markaas sameeynin mudaharaad ay cabashadan ballaaran marka ay uga hortagayaan waxaana dawladdu ay ku qasbaysaa in go'aankani markaasi uu shaqeeyo waxa la yiri sanadkii hore tirada macallimiinta u adeegaysa ardada ayaa hoos u dhacday waxayna gaareen 625 guud ahaanba dalka Itoobiya waxayna wasaaradda waxbarashadu qorsheynaysaa in sanadkan soo socda markaasi ay gaarsiiso 700 oo kun oo macallimiin inay noqdaan Itoobiya oo dhan marka la fiiriyo marka dad 130 milyan ah tirada ardayda iskuulada aadaysa ay waa dareemi kartaan inay malaayiin gaarayaan galaaska koobaad ilaa iyo midka 12aad ilaa jaamacad laga gaarayo marka intaas oo dhan macallimiin ay u baahan yihiin xaaladdu way aqran tahay dawladii macallimiintii xuquuqdoodii bay kari laadahay waxaana Itoobiya ka jira sicir barar ballaaran haddana ardadii ayaa waxa la leeyahay sanad baad bilaash ku shaqeynaysaan oo jaamacadaha markaas aad ku sii joogaysaan arrintaani qalalaasa xun iyo kacdoon dhalinyaro ayay ka bilowday gudaha dalka Itoobiya waxayna dad badan ka baqayaan in midaan ay noqoto in Itoobiya mar kale ay gasho jawi ay dhalinyarada markaas Itoobiyaanku ay hormuud u noqdaan in isbedel ballaaran uu ka dhaco Abiy Ahmed inuu xakameyn karo iyo in kale ayaa la isweydiinayaa waxaana muuqata laba mid inay noqon doonto inay dhalinyaradu hadda mudaharaadada ay wadaan ay xoogeystaan oo ay jaamacado kale iyo iskuulo kale ay ku soo beeraan oo hawsha ay sii socoto iyo in dawladdu cunaqabataynta iyo caburinta ay ku hayso markaas ardada iyo guud ahaanba dadka dalkaas Itoobiya ku nool ay si laba jibaarmaan oo ay markaas dawladdu ka guuleysato adiga daawada haddii aad ka mid tahay ardada jaamacadaha dhiganaysa go'aankani sida ayuu kula muuqdaa ma ku saameeyay adiga kale oo aad waali tahay caruurtiisuna ay dalka Itoobiya wax ka bartaan ama jaamacadaha ku jiraan ama iskuulada kala gedsan ha galaan arintan sidee baad u aragtaa faalada ama barta commentiga nagula wadaag fikirkaaga ku aadan arintan cusub ee wasaaradda waxbarashada dalka Itoobiya ay soo kordhisay ee markaasi dhalinyarada guud ee wax ka barata gudaha dalka Itoobiya cadaadisyada kala gedsan loogu sameeynayo anigu Cabdulqaadir Maxamed ayaa barnaamijkan la socodsiinayay waa waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta dalka Itoobiya ka jira sida aadkaana markaas loo hadalayo marka gudaha deegaanka Soomaalida laga yimaado oo iyagu markaas wax saameyn muuqata aan ku lahayn siyaasadda dalka Itoobiya marka hoggaanna ah oo inta badan waxa la yiraahdaa awrka dambe awrka hore saanqaadkiisu leeyahay deegaanka Soomaalidu inta badan waa awrka dambe Itoobiyadaas kore hadii ay siyaasadda wax ka bedelayso hadii ay mudaharaadayso inta badan deegaanka Soomaalida shaqadaas lagama yaqaano waa la iska hurdaa waa la iska fadhiyaa markii wax isbedelaan qofka yimaado ba haddana deegaanka Soomaalida si hogaamiyo marka qof isaga la dhacsan umbu meesha keensada waa ku maasantiin saaxiib la socodka barnaamijyadeena Cabdulqaadir Maxamed ayaan ahay nagu soo biiro barteena Magan Media subscribe ku samee si aad ula socoto akhbaaraadka caalamka kuwa Soomaalida kuwa geeska Afrika iyo si gaar ah xaaladaha dalka Itoobiya oo muddooyinka u dambeysayba xaalado kala duwan markaas galayay inta aan kulmi doono barnaamijkeenan barnaamij kale oo xiga waanu Cabdulqaadir Maxamed oo idin leh sidaas nabadgelyo ku xirnow Magan Media